maxamed xasan aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa sidaan ku sheegnay war-saxaafadeedkii ama shirka jaraa'id aan halkan ku qabanay walaac dhanka doorashada ku saabsan kuraasta magaalada Boosaaso taalla ayaa soo kordhay sababtuna waxay tahay doorashada daahfuran la'aanteeda madmadowga faraha badan ee ku jira processkii oo la hareer maray qabaa'ilkii oo aan tala la weydiinayn arrimahaas oo idil marka la isku daro waxa ay keenayaan culays iyo welwel iyo consign ay qabaan dadku eedo badan baa jeedisay arrintaasi guddi doorasho jirta yaa waxa soo dhan sameynaya eed balaaran oo aan hadda cid u jeedin ma jirto fariin baan diray ku saabsan in dhibaataan la abuurin oo dadka la iska horkeenin in doorashadu noqoto doorasho madax bannaan hufan dadkuna ay kalsooni ku qabaan inaa walaac muujiseen u baa muuqata maxaa oran kartaan kow iyo labo arrintaas gacanta lagula jira oo aad xukuumaddaad eedaynaysan ku eedaynaysan waxa ka warqabtaan doorashadii hore oo ka dhacday Garowe meesha lagu qabtay ma ahayn meel haboon ma ahayn meel u qalanta Puntland oo 23 sano jirta in xira ciidan lagu qabto annagoo taa ka duulayna waxaa noo soo baxday halkii Garowe halka daran in la rabo in doorashada Boosaaso lagu qabto oo ah gediga dayuuradaha magaalada Boosaaso oo aan ognahay inuu yahay meel ka caagan arrimaha doorashooyinka waxa nidaamka ECOWA ee adduunyada maxaa la yiraahdaa hay'adda u qaabilsan duulimaadyada ay qabtaa 150 mitir inaan loo soo jirsan karin runway-gii diyaaradu ka kacayeen ayaa teendal dhigay la rabo doorasho in lagu qabto ma haboona sumcad ahaan ma haboona dad ahaan ma haboona dowlad ahaan ma haboona magaaladan magaalo weyn weeye magaalo leh weeye meelo lagu qaban karo doorashooyinka jaamacadaha yaala hoteelaha ku yaala xarumo dawladeed baa ku yaala hageeyo xarumaha dawladda ha ku qabo hadduu kalsooni qabo madaxweynuhu arrinta la xiriirta in riboodka aad sheegteen inkastoo anagu aanan weli xaqiiqada ogeyn halka doorashadu ka dhacayso haddana Boosaaso waxbaa ka dhacay amnigeeda iyo arrimaheeda waa la socota haddii laga taxadaro dadqabka dadka la dooranayo ku wax dooranaya oo meel ammaan doorashada la geeyo maxaa idinku buraa idinka waxaad ogtahay maxamedow magaaladan waxaan dadku filanayeen ka dhaceen in duulaan lagu soo qaaday dadku kaceen dadku qaxeen xabad ka socdeen la duqeeyay dhaqaale xumo ka dhacday burbur ka dhacay dhaawac ka dhacay dhimasho ka dhacay wax kasta ayaa dhici kara oo ka suurtooba nidaamka dishooba doorashadii hore ee Garowe baa tiriibaan wax ka baranay waxa lagu qabtay 54 oo xira ciidana waxa soo baxay wasiirro aad isku federaalka wasiir ka wada ahaydeen oo saaxiibka bidhaan ka mid yahay idinka idin diidayna riboodka taan oo soo baxdaan hadaa kalsooni qabtaan kalsooni baan qabnaa waxaan kalsooni ku qabnaa dadkayga waxaan kalsooni ku qabnaa dadkaan matalo waxaan kalsooni ku qabnaa dadka gobolkan aan ku qabnaa doorashada hal la keeno meel ku haboon oo la isku dooran karo waxa rabaa arrinta la xiriirta amniga magaalada Boosaaso iyo in laga fikirayo arrintaas maan loo aanay karin guddiga doorashooyinka ma u tagteen war ma ka hesheen ma weydiiseen su'aalaha kana media arrintan la wadaagaysa waxaan rabaa marka hore inaan ugu baaqo dadka magaalada Boosaaso jooga nabadda iyo xasiloonida iyo deganaanshaha iyo midnimada inay ilaashadaan wixii dhacay magaaladan ku dhacay inay cashar noqdaan dib dambe magaaladan ma qaadi karto waxaan u baahanahay in guddiga doorashooyinku ay noqdaan guddi la heli karo la haleeli karo xafiis leh taas way tan keentay inaan halkan maanta uga jeedino baaq ah in la helo oo ay noqdaan dadka u dhaxeeya guddiga doorashooyinka ayaa arrinta wada sida muuqata inta officialka ah waan ka ognaa ma tagteen horta wali ma saragteen guddiga doorashooyinku guddi muxtaramiina weeye odayaal ah saaxiib baan nahay kalsooni badan aan ku qabno waxaan rabnaa kalsoonida aan ku qabno inaysan lumin